wararka suuqa kala iibsigana maanta Jimcaha waxa ugu waaweyn Arsenal oo heshiis la gashay mid ka mid ah xidigaha ugu sarreeya ee horyaalka waddanka Spain. Juventus oo lacag waali ah ka dalbatay kooxda Manchester City si ay u hesho difaaceeda. Milan oo Chelsea xidig ka doonaysa. Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Barcelona iyo guud ahaan maanta Jimcaha kooxaha waaweyn waxay suuqa ka doonayaan ayaan ku soo qaadan doonaa ee soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalka laga inoo saara lana wadaaga saaxiibo badan oo sportisa aynu ku bilowno. naadiga reer Jarmal ee Borussia Dortmund ayaa kula biirtay kooxaha Milan iyo West Ham doonista loogu jiro Marco Rashford oo 27 jira sida uu qorayo warsidaha ka soo baxa Jarmalka ee Bild. Milan ayaa si la mid ah doonaysa 25 jirka Portugal iyo kooxda Chelsea Joao Felix si ay bedel uga dhigtaan mid ka mid ah xidigahooda sida Gazzetta della Italia ay qoraysa. Everton ayaa xiiseynaysa William oo 36 jir ah oo hore ugu ciyaari jiray kooxaha waaweyn ee reer London. Manchester City ayaa la hordhigay 67 milyan si ay u helaan difaaca Talyaaniga ah ee Andrea Cambiaso 24 jira bisha January sida Gianluca Di Marzio wariyaha la yiraahdo uu qoray. Arsenalna waxay heshiis la gashay xidiga 25 jirka Real Sociedad Martin Zubamendi sida Football Transfer uu qorayo xidigan ayaa 5 sano la gaaray kooxda reer London. West Ham iyo Tottenham ayaa ku dagaalamaya Barcelona iyo Spain wariyahankooda Ansu Fati sida Isbaanishka warsidaha la yiraahdo Sport uu qorayo. Real Madrid ayaa ku rajo weyn inay gacanta ku dhigto 23 jirka Faransiiska iyo kooxda Arsenal qaybta difaaca kaga ciyaara ee William Saliba la yiraahdo sida Football Mercato uu qorayo. warku aad buu badiyay saaxiibayaal qayb waxa ka kooxda Sacuudi Carabiya ka dhisanaya Al Hilal ayaa la warinayaa inay wada hadal gabagaba ah kula jirto Egypt wariyahankooda Mo Salah sida warsidaha Faransiiska ah ee Le Coupe uu qorayo. Chelsea ayaa doonaysa in ay Borussia ka hesho 22 jirka weerarka ninka Jarmalka u dhashay ee Karim Adeyemi la yiraahdo sida Bild laga soo xiganayo. ugu dambeyntiina naadiga Manchester United ayaa doonaysa Algeria difaacooda kooxda Wolves ee Rayhan Atal Nouri haddii ay ku guuldareystaan in ay xidiga la yiraahdo Tarek Malaysia ay sii haystaan 25 jir kaasi oo la warinayo inuu u dhaqaaqi karo kooxda Juventus. saaxiibayaal wararku aad bay u badan yihiin laakiin intaas ayaa ah waxa ugu waaweyn maanta wargeysyada caalamku ay qorayaan.